kulan ballaaran oo isku yimaadeen qaar ka mid ah xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ku sugan Muqdisho ayaa lagu falanqeeyay xaaladaha adag ee uu dalku marayo iyo dhacdooyinkii ahaa ku xadgudubka dastuurka sida isdaba joogga ah ay ugu kaceen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. xildhibaanadu waxay isla qiimeeyeen mas'uuliyadii loo igmaday golayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay wakiilka ugu ahaayeen shacabka Soomaaliyeed, waxaana isla qireen in xildhibaanadu ay ka gaabiyeen mas'uuliyadii ahayd korjoogteynta iyo la xisaabtanka xukuumadda, waxayna ku ballameen inay u istaagaan gudashada waajibaadkooda dastuuriga ah iyo madax-bannaanida baarlamaanka. xildhibaanadu waxay ku doodeen qodobada dastuurka ee sida bareerka ah ay ugu baalmareen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, taasoo ay u aqoonsadeen inay tahay khiyaano qaran. qodobada ee sida gaarka ah u xuseen waxaa ka mid ah sareynta iyo ilaalinta dastuurka dalka, qodobada 4 iyo 87 farqadiisa koowaad wadajirka ummadda iyo midnimada geyga Soomaaliyeed, qodobkiisa koowaad farqadiisa saddexaad mabaadi'da federaalka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo qaab dhismeedka dowladda, qodobada 48 iyo 50 kala madax-bannaanida hay'adaha dowladda sida baarlamaanka, fulinta iyo garsoorka, qodobada 55, 56, 57, 97, 99 iyo 106 xorriyadda isu socodka, xuquuqda iyo karaamada aadanaha, qodobada 10, 12 iyo 20. xildhibaanadu waxay cadeynayaan in madaxweynuhu dayacay mas'uuliyadii iyo waajibaadkii masiiriga ahaa ee loo doortay sida ilaalinta dastuurka iyo shuruucda dalka. sidoo kale mudanayaashu waxay isla qireen in xukuumaddu ay ku guuldareysatay gudashada waajibaadkii loo igmaday oo ay ka mid ahaayeen amniga iyo wadajirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, dib u heshiisiinta, qaybtirka dastuurka, hanaanka doorashooyinka, dhamaystirka hay'adaha dastuuriga ah sida garsoorka iyo xuquuqul insaanka. xildhibaanadu waxay cambaareynayaan ku tumashada sharciga, ku tagrifalka awoodda dowladnimada, cunaqabateynta shacabka Soomaaliyeed, caburinta siyaasiyiinta iyo madaxdii hore ee qaranka. xildhibaanadu waxay si gaar ah cod dheer ah ugu cambaareynayaan xayiraadii lagu soo rogay shacabka ku nool maamul goboleedka Jubbaland, waxayna ka digayaan in cunaqabateynta iyo waxyeelada shacabka loo adeegsado ciidamada qalabka sida ee qaranka iyo hay'adaha dawliga ah sida hay'adda duulista hawada iyo hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha. xildhibaanadu waxay si adag ugu digayaan haddii ay sii socdaan arrimaha kor ku xusan inuu khatar gali karo hanaanka dowladnimada iyo masiirka qaranku. xildhibaanadu waxay ku baaqeen in xubnaha labada gole ee baarlamaanka ay gutaan xilkii ummadda u igmatay ee u dhaarteen, haddii kale ay talada ku soo celiyaan shacabkii doortay. in loo saaro guddi ka kooban labada gole oo baaritaan ku sameeya waxyeeladii bini'aadanimo ee ka dhalatay cunaqabateyntii la saaray shacabka Jubbaland, in si shuruud la'aan ah loo qaado xayiraadda iyo ciqaab wadareedka la saaray shacabka Jubbaland, in xuquuqda iyo maamuuska ay leeyihiin madaxdii hore ee qaranka soo martay ay tahay lagu xadgudbaan, in shacabka ku nool gobolka Banaadir jidadka loo furo si ay noloshooda u raadsadaan. gabagabadiina xildhibaanadu waxay soo jeediyeen in xalinta khilaafaadka ragaadiya dalka iyo taabgelinta geedi socodka dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya talo qaran oo loo dhan yahay laga yeesho. Maxamed Bootaan Yuusuf, telefishinka xisbiga UPD, Muqdisho.